haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, dhaqanku waa muraayadda aan midadhka lahayn ee laga tooyan karo hababka nolosha ummadaha. soomaalida oo ummadahaas ka midana wuxuu dhaqankeedu wax inaga bari karaa siyaalihii ay u noolayd, gaar ahaan noloshii raacatanimada ee muddada dheer ay u badnayd. aan kolka maanta ka yara faalloodo soomaalidii xilliyadaas iyo hiddaheedii martisoorku siduu ahaa. shalay iyo maantaba qoyska raacatada ah ee soomaaliyeed wuxuu jecel yahay inuu dego berrin xoolihiisa daaq ugu filan, biyo ceelna aan ka fogayn. hadduu helayo wuxuu jecel yahay in balli xareeddu waran tahay iyo ruuman qashku daboolay ay xoolihiisu waa berigii ka soofaan, fiidkiina u soo hoydaan. ha yeeshee barwaaqadaas waa la tilmaami karaae kol walba lama helo. biyuhu dhulka kuma badna, ama way ku badan yihiine halka ay fadhiyaan ayaan loogu tegi karin. roobkuna xilli buu ku yimaadaa, wax yar kadibna ballidaa dawrta oo cagaarka geedaha engega. dayrta iyo biyaheeda, guga iyo ubaxiisa waxaa xiga xagaaga iyo gabadanadiisa, dilaacda iyo aroorkeeda. xilliga roobku hadduu xumaado, qoyska raacatada ahi waa walwalaa. aroorka dheer buu ka baqaa. biyo dayreed ama biyo guu xoolaha gaarsii wax aan ahayn duqa reerku kuma fakaro. waxay weliba u sii daran tahay kolkay ceelka iyo cashintu kala fogaadaano geelu waaba adkaystaaye ay lo'du saddex qad noqoto oo banaaxigii tahli weydo. adhiguna wuxuu guul oon iyo guul wabax ku jiraba uu doon u bato. 2 bilood ilaa 3 kolkii canaabtaas ay ku jiraan ayay cirka qaawan iyo indhuhu is-eedaan. daruurtii soo korodhaba inay di'i doonto ayay ka fishaan. markay caad isu rogtana huq iyo calool xumo ayay ku reebtaa. laakiinse fallaadhi gilgilasho kaagama hadhow waatay ku maahmaaheene. bal arrintan soo socota ila male. xoolihii oo markaas soo xerooday, daal iyo nacfi xumo dhacsaan lala yahay, xeradii tan looga guuri lahaa uu odaygu maaminaayo, ayaa bulaan iyo qufac beenihii soo yeedhaan. waa digniin. waa rag doonaya ogaan la'aan inaysan reerka ardaaga ugu soo geline ay isa sii ogeysiiyaan. waa marti. masahan meesha gabalku ugu dhacayba ah. ma rag baadidoona oo xoolo diracda ku kala haaday ku raad joogaba. ma xigaal reerka soo haybsaday oo hoyasho mooye aan socod dambe oo habeennimo laga idaynba. mase waa culimo iyo xerquraan diinbarasho mooye aan weli tacab xoolaad u soo jeesan. cidday doonaan ha ahaadeena ragga soo bulaamayaa waa marti. reerka ma dhaafsiisna. halkan buuna hiddihii soomaalida ee martidu ka muuqanaya. waa runoo waa jiiraal dheeraaday, waa nacfi yari, waa ciidan xumo oo waa biyo la'aan. ha yeeshee waxaas oo idili duqa reerka kama baajin karaan inuu martida gogol u helo oo cunno u helo oo intay cunayaan uu waraysto uguna dul sheekeeyo. si ay iyagu gogol u helaan, xubnaha qoyska ayaa ciidda seexanaya. si ay wax u gasiintaanna, xubnaha qoyska ayaa dib jiraya. haddii ay dani timaaddo oo xoolaha reerka wax dhiiqa iyo wax rag loo loogi karo laga waayo, amaba ay martidu badan tahay, waxaa duqa qoyska lagu soo hoyday u bannaan inuu dariisyada u qayshado oo wuxuu hidin karo wax loogu soo kordhiyo. haddii kale martida qaar laga kaxeeyo. duqa qoysku wuxuu u taagan yahay soomaalidii raacatada ahayd ee xilku dhibi jiray. waa nin og in berri ka maalin uu isba reer ku soo hoyan doono. waa nin magac ilaashanaya oo aan doonayn in la isdhexuliyo hebel laguma hoydo oo martida wuu ka seexdaa. waa nin dhaqanka degaankiisa u hoggaansanoo aan doonayn in bulshadiisa uu tuka baalcad ka ahaado. isweydiintuse waxay tahay sababta xilli daraaceed oo kulul aan martida iyo qoyska isugu soo beegay.
waa isweydiin meesha ku jirtay aan idhaahdo wax badan adigoo haysta inaad wax ka bixisaa muujin mayso deeqsinnimo kugu tallaalan iyo inaad tahay nin martidu aanay agtiisa ku qadin 10 halaadin inay u dhashay waxba kuma aha marti u timid inuu laba isugu soo liso waxaase xildhibaannimo iyo martigelin doora lagu sheegi karaa hashii keli ahayd ee u irmaanayd ninkii caanaheeda martidiisa u huray oo isagoo og carruurta iyo qudhiisuba inay calool maran ku seexan doonaan isugu muujiyey sida nin ay dhiiluhu u buuxaan waase sheekada iyo kaftanka uu la dul joogo dhaqanka soomaalida ee martida ku saabsani sidaas buu ahaa ama u dhowaa waase dhab oo waxaa iyaguna jiray rag martida ka seexda oo ruuxu yaqaani uusan doog iyo diraac toona aqalladooda ku hambaasin raggaas iyaga ahi raacatada soomaalida kuma badnayn dhaqankoodaasina wuxuu u soo jiidi jiray quursi iyo darrow joogto ah oo xataa warasada ku abtirsataa aan ka harin waxaa haddaba jirta suugaan aad u tiro badan oo soomaalidu ay ku ammaantay martigeliyaha wax u quura kubkubooraha socotada ah isla markaasna muudalka daraabaysa bulshadii hore ee soomaalidu waxay tiqiin tilmaamo dhowra oo ninka ku sheegan ay u aqoonsanayd nin horaad nolol dheer loo rajeeyo hadduu iishana in loo duceeyo mudan waxaa ka mid a geesinimada xaaje aqoonta xaragada dulqaadka aftahamada iyo marti u roonaanshaha martida oo si fiican loo sooraa waxay ahayd tilmaan uu gabyaagu dadka kale ku ammaano isaga qudhiisuna hadduu isku og yahay iyo haddii kaleba uu isku ammaano waa tahay suugaanta martidu waa tan badane aan soo qaata maanta xaaji cismaan sharmaarke oo ka mid ahaa raggii sadanadii hobyood ee mudug magaca dheer ku lahaa waxay ahayd mar isaga iyo suldaan cali yuusuf xiriirkoodii uu madmadow soo dhex galay inuu suldaanka daacad u yahay ayaa laga shakiyey markaas baa geeska la geliyey hadday la noqotay in laga gardaran yahayna wuxuu tiriyey tix cabasho ah uu ku muujinayo inuu leeyahay 5 tilmaamood oo lagu wada og yahay ayna la ahayd inaan looga maarmi karin haddii inta la xaal marin waayo uu hobyo iyo sadanadaba ka calool go'o dabadeedna ka dalaabo tilmaamahaas iyaga ah ee xaaji cismaan uu gabayga ku sheeganayo waxaa ka mid ah deeqsinimada iyo martigelintii wacnayd ee uu islahaa bulshadu way kugu wada taqaan gabaygaa oo dhextaalkiisu yahay sow la tabi maayo waxaa ka mid a tuducii uu ku odhan jiray erge 10 habeen soo dhaxday oo timid halkan joogo tulda geela inaan loogo waad igu taqaaniina waa laygu wada toosayaa taajir saan ahaye gacantan tashiilada aqoon sow la tabi maayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo